نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به. وفيه النور وفيه اللؤلؤ والمرجان. ولد يا شبل الإيمان واصدح بالقرآن. أتل السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر والقرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران. أتل السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر والقرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران. فيه الرحمة والغفران. ولد يا شبل الإيمان واصدح بالقرآن. ولد يا شبل الإيمان واصدح بالقرآن. أبدا لا يعلوه كتاب أبدا لا يجفوه صواب أنزله رب وهاب رب تواب رحمن. أبدا لا يعلوه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أنا إخوتي في العقيدة ورمضان waxaan filayaa waa waqti malaad dadku daalay laakiin waxaan isku dayayaa inaan kalimaad kooban insha Allah taala dariskan ku soo koobo. dariskan waxaynu kaga hadlaynaa ataaqat almuhaddara awoodaha Alla siiyay subhanahu wa ta'ala ee aynu dayacnay ama si aynan adeegsanin. Ilaahi subhanahu wa ta'ala quraanka wuxuu ku tilmaamay wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ilaahi wuxuu nimco idinku galladaystay wuxuu baraariya saradiya barwaaqo idin siiyay haddaad tirisaan baa Alla leeyahay subhanahu wa ta'ala ma koobi karaysaan. nimcooyinka Alla subhanahu wa ta'ala ma aha wax tiro lagu koobi karayo laakiin waxa isweydiinta leh waxa weeyaan intaynu nimcooyinkaasi ka faa'iideysanaa ama si adeegsanaa. dhan kastoo laga eegaba nolosha waxaad moodaa inaynan halkii loo baahnaa gaadhin ama si aynan ku qanacsanayn. maalan waa ramadaan dadku inta badan quraan akhris iyo cibaado iyo salaad iyo tasbiixaat iyo duca ayuu ku jira. markaynu milicsannay in yar taariikhdii dadkii muslimiinta ee hore waxaad moodaysaa inaynu akhriyayno dad kowkab kale ku noolaa dhul kale dad ku noolaayo kanaynu inagu deganay aan deganayn. markaad aragta awoodooda juhdiga tamartay bixinayeen waxay yaqaaneen waxay qaybsanaayeen marka lagu yidhaahdo waa caalim muslim oo fulaana maanta waxaan ku dhuftay kutub الرجال ama taraajumka ayaan xafid القرآن ku qoray dabeetana waan galay waxaan eegay bal culamadii muslimiinta ee hore ee la yaqaanay ama la garanayo waxay quraan hayeen man arag nin caalimo iga soo horbaxa ilaa iyo quraan iyo intaasoo kitaabo kale u qaybsay quraan qura inagu keenna quraanka qayba ayaa ma sha Allah taagantay kaasaynu ma jiirana farta ku tilmaamna waxa la yiraahdaa intaasoo xaafid baan leenahay hebel waa xaafid. laakiin markaynu salafkeena akhrino taariikhdooda iyo taraajimtooda waxaad moodaa dad kowkab kale ama dhul kale deganaa inaynu arkayno oo kaanama marka lagu yiraahdo waa Bukhari intaasoo 100,000 xadiis buu qaybsanaa waa Imaam Ahmed oo 1 milyan oo xadiis buu hayay waa Awzaaci intaasoo 100,000 xadiis nin walba marka lagu yiraahdo 100,000 xadiis oo maca sanadkiisa wata iyo wuxuu dhanban kitaabba ku qorayna uu korka ka watay bal ay subac u fadhiisan jireen sidaynu quraanka subaca ugu fadhiisanaabay xadiista subaca ugu fadhiisan jireen. dabeetana inta nin caalim nin kale u yimaado buu ku dol akhriyo jiray wuxuu maxfuudaadkiisa oo dhan inta ku dol akhriyo ayaa la isla sixi jiray oo la kala eegi jiray.
innaga maxaa taaqadan iyo awooddeennii xaggay ka baxda dariskan markaa maanta aan isku dayaya inaan akhriyaa waxa weeyaan waxaan rabaa mindaarka ama maxaa la yidhahaa mikriska waxaan nolosha waxaynu ku eegayno inaynu change garayno muraayadaynu xidhannay aad u qallafsan muraayadaha qallafsani waxay suurto gelin kari waayeen inaynu noloshii xaqiiqada ahayd aragno taasaa waxay keentay markaasi in taaqaadkeen iyo awooddeen iyo dhamma ay catilanto oo waxba aynu garan kari weyno taasaa waxay keentay in maalinimo maalin inoo dhiibto shaqo walo aynu qaban karnaba aynu israano berri sanadka dambe markaad soo firaaqowdo bal hadhow baad wakhti u daydayi doontaa noloshana mar la firaaqoobaaba ma jiro waxaan rabaa markaasi maanta cilmi idinku kordhin maayo laakiin silsiladaan idinka jebinaya yacni waxaan rumaysnay in silsilada inagu xidhan yihiin awooddii iyo taaqadii alla ina siiyey subxaana wa tacaala in silsilada inagu xidhan yihiin waayo shayga nolosha ay u baahan tahay maalmaha ka mid ah waxaan galay netka dabeetana waxaan galay labadan website ee xufaadul waxyeynka laba website oo qur-aanka iyo axaadiista lagu qaybo kadib baa waxaan arkuun iclaan yaroo meel ka laalaada oo sheegaya ma rabtaa qur-aanka inaad 30 maalmood ku qaybto markaasaan sidhi waa qariib war mala 30 maalmood qur-aankii aad taqaanay 30 malaa laguma qaybo 30kii maalmood meesha ku qorayd baan galay waa risaale ama kitaab nin qoray oo 63 page 63 page runtii haddaad akhrido noloshaada wax badan baa iska beddelaya waxa uu xisaabiyaa uu tilmaamaya uu leeyahay wax kasta oo nolosha hadaf kasta aynu u baahanay inaynu xaqiijinaa laba shay oo quru u baahan yahay buu leeyahay midi waa alhimma walcaziima walmusaabara midi waa han sare oo go'aan adag wata hanku waa qofku inuu han weynaado haddaad han yar tahay waxa weeyaan waa cigaal shidaadkii lalahaa maxay col hortii jabayay col hortii baad jabaysaa haddaad han yar tahay macnaheedu waxa weeyaan adaan waxbaba isku dayin ayaad jabaysaa laakiin qofku markuu han weyn yahay oo uu casiimana leeyahay go'aan adagna uu leeyahay kaasi waa qodobka koowaad ee nolosha wax ka bedeli kara qodobka labaad ee nolosha wax ka bedeli kara waa almaqdira awood iyo istitaaca inay jirto awoodi inay jirto awoodina way kaa buuxdaayo waa lagu tusi waaye Soomaalidu waxay yidhaahdaan geela baa aakhira xooggiisa la tusaabay yidhaahdeen adduunka ilmo yar baa dee neefka geela weyn hogaamiya marka aakhirun buu xooggiisa arkaabay yidhaahdaan waxaan ka baqayaa inteenna badani inaynu ku dhacno aakhira un inaynu aragno awooddii iyo nimcadii iyo xooggii allayna siiyey subxaana wa tacaala in adduunka arkari weyni ka saddexaadna wuxuu ku tilmaamayaa inay tahay in la helo الصحبة الصالحة المشجعة إن له الضد في عن وآد قرقارسته الراعديد وآن مثبطين هين آن ضد بلك كوغنا بيا هين ضد كركو قاضي كركو سي وضيا وحلقة يابا ولينا وهي ستان إعلان كيا تلمامي ها إن قرآن كصدن مالموت صادقو قيبه سائني مسألة الرياء هاي waxa uu sameeyay amaliye xisaaba xisaabtu waa waxyaabo ugu concrete ee bini'aadamka lagu qanciyo amaliye xisaaba buu sameeyay wuxuu ku tilmaamay page-ka quraana imsaad ku qaybi kartaa page quraana aan xisaabta xaga kale ka soo maro jiska quraana imsaad ku akhridaa ninka gaabiya nus saac ku akhriya raga carabka fududina rubuc saac meelaha si gaarsiin kara mutawassidkuna 20 ilaa 25 ay ku akhriya haddaan idhaahdo jiska nus saacaad ku akhrida jiska quraani way mise page markaynu qaadano tabcadatan Uthman Taha uu qoray yani mushafkan aynu akhrina ninba gacantiisa ku qoray madbacadii waxa maaha ninba gacantiisa ku qoray عثمان طه كتاب كان قري وحو سميسي قاب شنية طبعا صدر بيج كستابين وككوبين هي آيات نكبل ما آياتنا وكل ماضو جسوا اللي بلا باتم بيجينو يهي
marka laga reebo jiska koowaad ee faatixada intan la qurxiyay kaasi waa 22 page marka laga tago isna jiska ugu dambeeya ee jis caama ah oo isagana suuradaha calaamadahan u dhaxeeya lagu tiro badiyay isna 23 page ama quraanka caadiga wuxuu ku qoray maxay 20 page jis kastaaba sadaradeed musxafkaasi wuxuu ka kooban yahay 604 page haddaynu idhaahna 20 page ayaad gaabisaayo nus saac ku akhridaa nus saac page-kii misaad ku akhriday marka 20 daqiiqadood qaybi waa daqiiqad iyo badh socanka maaha page-ka waxaad akhriyi kartaa daqiiqad iyo badh qofka gaabiye 30 daqiiqadood jiska ku akhriya page-kii wuxuu akhriyi karaa maxay daqiiqad iyo badh buu ku akhriyi karaa sadar imisaad ku xifdii kartaa markaad imise jeer ku celiso hal sadar مثلا قل هو الله مصحف كاسي والله بس صدر قل هو الله النسكي إمي سجور مركز أخرجات غيبيس يعني مصحف كامر كانوا يقولون قل هو الله النسكي وقل هو الله أحد الله الصمد لم يلد أنت صدر إلا لم يلد إمي ساتكو غيبيس مركز إمي سجور أخرجه مر لبا صدح أفر شن لح تضوا سيدة إمي ساتكو غيب كريس haddii aan idhaahdo maalan 5 jeer baad ku qaybi kartaa haddaan idhaahdo sadarka markaad akhrido 15 sadar imisaad ku akhriyaysaa marka yani sadarkiiba waxaad ku akhriyaysaa minute iyo badh soo maaha page-kii minute iyo badh baad ku akhriyaysaa minute iyo badh haddaad ku akhriyaysay page-ka 20 jeer inaad akhridaa maxay keensanaysaa waa nus saaci بيجك الله باتن شيرين هذا خريدا وامحي ونصاصي وحلي عملية حسابي إن كان الصدر كهدام كويدا هذا بودي شن شير آخري أو صفي عن آخري صدح شيرنا محاولة سيدات شير بتكون غيبة كرتا هدان إذا هذا بولي هاي معنى هذي وحوي عن لبية 8 دقيقة دوت ببيجك لوجو غيبة لكن والله بية 8 دقيقة دوت التركيز اللي هذا يبين هذا والله بية 8 دقيقة دوت وأنا دميل لو شيء سنين إذا هداد بيجكي إلا 110 دقيقة كو قيبي كرتو وانكي جايبين أيام ولي الله صعدا إنما دا دايرين يلا ما صعدا بيجك هداد 110 دقيقة كو قيبي كرتو هدي مالنتي أنكو إذا هذا شن نص ساعة آخر قرآنك شنت صلاة والبا نص ساعة آخر وأمسا وأفر ساعة دود يبرد أفر ساعة دود يبرد 110 دقيقة أدي لغو دفتو لحدا لو قيبيه واي بس وشن بيج تدمين ساعات كستا شن بيج ما تغيبي كرتا هدات شن انت كود فتو والله بيا 20 بيج يبرد معناه وحويان أفر ساعة يبرد واحد كو قيبي كرتا مركز نظام كا 110 دقيقة راعيسو لبيا 20 بيج لبدا بيج يبرد كطور 20 بيج وهلجس نظام كي يسوي حسابيه هدات سيدان كو سعوته واحد كو قيبي سوا حويان تضبية 20 مع الموت تمعنى هذا حويان تقريبا صدق كيما المدى وشيء وكو قيبي كره وحلقة بينات هذا مستحيل وحنا مسك حسابات شيك تشيخه براكتيكال كلغو ما هي براكتيكال كا هدي اسباب الله هلو وهو صورته قلا وحلقة يابا markaan inta badan tajaaribta akhridaan in kuwi salafka aragtaan oo dabeetana la yaabtaan imaam az-Zuhri قرآن كمركو برني استيتن عشوكو غيبة يعني سيدا بلا هشام الكلبي وحلا إلى صدح عشوكو صا غيبة waxay ku sheegaan rag badan marka taraajimtooda akhrido inta bay ku qaybeen intan laakiin raggaas waa raggii hore waxa odhanaysan iyagu khaariq ay ahaayeen dadaan khaariq ah inaan hadda jooga hadaba tilmaamo ilaahay horta wuxuu ina leeyahay wa fi anfusikum afala tubsiruun وعلم آدم الأسماء كلها آدم مقع عردن با إلهي بري سبحانه وتعالى آدم عقل جيسو وحو قاضي وح عجز قليي ملائكته آدم عقل جيسو وحو قاضي محي سا قرآن كنت الماميو وح عجز قليي ملائكته با آدم عقل جيسو قاضي سيكا لهدانو تلمامو وحنا دلهي هادي أينو يسكر يبنو أفكارتن لينو أخريا وحبل لما قيبي كرو وحبل لما أخري كرو وحبل لما برن كرو وحوا صعب وعلى هرتي شبيه تاسي هدي تال الريبو
waxaan leenahay wax badan oo fududaanaya baa jira bal aan bacdi tajaarib ay soo naqliyaan tilmaamo gabadh haweena ayaa waxay tiri waxay igu qaadatay ali cimraan iyo albaqra inaan qaybaa 7 sannadood kadib ayaa bil ramadaan 15keedii baa ninkaygii wuxuu yidhi bay tiri waan ictikaaf tegayaa waxaan qabanayaa baytullaahi alxaraamka 4 carruurana waan haystaa bay tiri waan warwaray marka meel aan reerkaygu deganayna waan deganay dabeetana maxaad qaban doontaa 15ka cashe ramadaankii odaygii maqanyay ayaan isweydiiyey bay leedahay anigoo aad u mahmuuma bay tiri aad u wareersan baan internetka galay waxaan helay bay tiri website-kan akademiya xufaad alwaxyayn waa sheekh cali rabiic sheekh cali ibn saciid alrabiici website-kiisa waa website dadka qur-aanka qayba ay galaan ayaan galay bay tiri dabeetana sheekha website-kiisii markaan eegay ayaan waxaan arkay bay leedahay qola meesha ku qoratay 3 casho ayaan baqariya al cimraan ku qaybna أنا تضرب سنة ضد بيجو صغار تبي ترى البقرة يا العمران إن قيبه وحنا كبيت ردمر له صدح مع الموت بانكو قيبنا البقرة يا العمران دبتنا وحنسير بوي تري ما بالقلادن وحكي بدلي ما نجش ويب سايت كان ريجستر قريبة ترى وحنا واحد ربها إن الممبر كان نوضه دبتنا وحيجا شيء دورات وبحية شيخه والله يدهده دورات تغيير العقل بوبحي دورات كيس دورات كمان بدلك ayay gashay kadib ayaan bilaabay bay tiri munabah baan saacad yar baan halkan dhigtay balina page-ka 10 daqiiqo 12 iyo waxaan la sheegay inaan ku qaybi karo waan tijaabiyay bay tiri 10 daqiiqadood baan page-kii koowaad ku qaybay dabeetana maalintii koowaad baan fadhiistay bay tiri subaxii ayaan fadhiistay goor barqa ah ilaa 2:00 duhurnimo in yar baan jiifsay kadib aan casar fadhiistay ilaa cishihii maalintii koowaad baan istijaabiyo 3 jis baan qaybay bay leedahay waa hal maalina ayaan istijaabiyo bay tiri 3 jis baan qaybay 6 maalmood markaan marayay bay tiri 6 iyo 10 jis baan qaybsanaa 6 maalmood markaan marayay 6 iyo 10 jis baan qaybsanaa waxaan gaadhsiiyay bay tiri inaan 8 daqiiqadood page-ka ku qaybo waan ka badiyo markii dambe 5 daqiiqadood uma page kasta ku qaybi jiray gabadha tan mala caqligeena ka weynaa aan hore isaga dhaaf ومعاصم هويني كلا الله يراد يدو حلا داي أنا جو حنسميه مسألة الله يراد الاعتكاف بالقرآن بنسميه بيتنا لبعتن مع الموت ما القرآن كقيبة غريبة لبعتن مع الموت ما القرآن كقيبة بيلاد وليبا بيلاد ما نهين قفض مراعد لك شوكتي أفرع عرفورة يا أبوه يا جوري يا رير كان وين مامول يوم ودي بيلاد هبن كم مغرين ساسي درادد بوحي شيء سائل هذا دورات كشيخ سبحية بيتري علي الربيع علي بن سعيد دورات كيسا تغيير العقل كان دقيستي كدي مركان دقيستي أيام بلا بيتري مسا ما أنتي هررت اللح صفحات بان قيبي بيت وان وذا يوم مركي دم بيوحن قاري بيتري نان لبيه طبعا صفحات قيبي كره ما المه يقدم بيوحن قاري بيتري نان كنتن صفحات قيبه ما أنت أن ختي بينا لبيه تضباط صفحات بان قيبه لبيه تضباط الصفحات ضايمس صفحتي هدين ونيجيسكو ولا 20 صفحات مسو نقونيا 3 جيس يا بad يا dheeraad waliba 2 صفحات baan maalintii u dambeysay qayb bay leedahay laakiin mise ku fadhiday waxay leedahay 24 saacadood 8 ilaa 10 saacadood baan xifdi u fadhiyay 8 ilaa 10 saacadood ayaan xifdi u fadhiyay waxay ku tilmaamaysaa habeenkiina 2 saacadood baan seexan jiray maalintiina 2 saacadood iyo badh baan habeenkiina seexan jiray maalintiina snaab yarun baan qaadan jiray in yarun baan indhaa guduudsan jiray kadibna waan ka kici jiray waayo project bay sugaya bay leedahay inaan dhameeyo waxa laga yaabaa ina masaa'ilka kan ka yaaban tihiin laakiin waxay yidhaahdaan haddii sababta la garta bay yidhaahdaan batal alcajab wax waliba markaad sababta garanay wax weyn buu kula yoodka yaab dayrad cirka maraysa markaad aragto warbalada tan maxaa hayabaad sooyidin laakiin hadii lagu dhigdhigo say wax doolaan iyo saadooda ha warila waxan baa la isu geegeeyaba dad waa iska kacaan waa kula fududaanaysa yaani qofka bini aadamkii marka uu sababta aqoonin wax waliba qariib bay leeyihiin wax adaga weyn bay leeyihiin laakiin hadii lagu sababeeyo lagu riisan gareeyo wax lagu sheego wax way fududaadaan ilaahay wuxuu ina siiyay subhanahu wa ta'ala maskax
maskaxdani aad bay u yartay jidhkeenna marka lagu miisaamo bay yidhaahdaan waa 2.5% wasniga jidhka waxay yidhaahdaan waa 1330 garaam meelahaas bay ku tilmaamaan isku celcelintu kiilo iyo waxoogaa yar weeyaan maskaxda kugu jirta haweenkana bay yidhaahdaan raggu 40 garaam buu ka weeyay yani isku celcelinayana 40 garaam bay ka miisaan yaryihiin maskaxdaasi waxay isticmaashaa baa la yidhaahdaa jidhku waxaad oxygen neefsato oo dhan dib u jiido rubuc ka mida keligeed baa cunta allaaliya waxaad oxygen cabto rubuc ka mida maskaxdaasaa cabta maskaxdaa waxaa ku jira balaayiin unugyo ah maskaxda aynugu jirta waxay yidhaahdaan 22 decimeter decimeterka ma taqaaneen centimeter maaha hoos uga sii kac decimeter 22 decimeter oo murabbac ah yani square ah 22 decimeter intuu leegiin somewhat meelahan buu leekaanaya waa wax aad u yar centimeter waa decimeter 22 decimeter oo square oo maskaxda bini aadamka ka mid bay yidhaahdaan waxa ay qaadi kartaa 20 milyan oo volume ama book inta ku qoran bay qaadi kartaa ma u malaynaysaa in awood intaa legaad wadato waa 22 decimeter in ka mid oo maskaxda sidata ka midi waxa ay qaadi kartaa bay leeyihiin 20 milyan oo mujallad oo mutawasit alxajmiya waxay ku tilmaamaan maalan axad alculamaa waa professorka la yidhaha mark rosizan oo ka mid ah culamada maskaxda daraasaysa ee jaamacadda california sanawaad badan buu daraasaynayay kadib buu wuxuu leeyahay haddii buu yidhi maskaxda bini aadamka maalin kasta 10 macluumaad fi thaniya loo sheega buu leeyahay second kasta 10 shay haddii loo sheega buu leeyahay secondku waa ilbidhaqsi halka minute baa 60 second ah second kasta ama thaniye kasta oo ka mida nolosha qofka haddii loo sheega buu leeyahay 10 shay 10 macluumo loo sheego muddo 60 sanadooda lagu wado habeen iyo maalintoona aan la kala joojin waxaad qiyaastaa second kasta 10 baa lagu sheegayaa shay 60 sanadood baana lagugu wadayaa habeen iyo maalinbana waa lagugu akhrinayaa wuxuu leeyahay macluumaadkaasi maskaxda bini aadamka ma buuxinayaan 1 على مليون من حجم العقل buu leeyahay 1 على مليون من حجم العقل sida daraadeed bay waxay ku tilmaamaan insaanku maskaxda ku jirta awoodda alla siiyay maba isticmaalo bay leeyihiin 10% mooyaane boqolkiiba 10 ayuu ka isticmaalaa bay leeyihiin waxa lagu tilmaamaa qoladan computersku waxay ku xisaabtamaan gigahertz inuu processorku inta uu gigahertz uu per second jari karo waxay yidhaahdaan maskaxda bini aadamku 400 مليون عملية حساب bay في الدقيقة samayn kartaa waxay ku tilmaamaan maskaxda bini aadamku 30 bilyan macluuma ayay fi thaniya mucaalaja ku samayn kartaa any computer dunida yaalla saamo ma qabto waxa lagu tilmaamaa maskaxda bini aadamka iyo xidhiidhada unugyadaadu leeyihiin 600 mayl cable-ka iyo wire-ka la dhigi karo ayaa u dhaxeeya bay leeyihiin iyada xidhiidhadeeda dhaakiraduna waxay ku xidhantahay bay leeyihiin inta xidhiidh ay samayso waxay ku tilmaamaan axad ulculamaa baa wuxuu leeyahay haddii buu yidhi dunida waxa tv iyo telefisyon iyo raadaar iyo telegraf iyo telecommunication waxa wax lagu xidhiidhiyo dunida yaalla haddii inta la yareeyo buu yidhi caqliga bini aadamka oo kale loo ekaysiiyo waxaasoo dhan waxa iskaga badan buu leeyahay bini aadamka maskaxdiisa yacni all telephone dunida yaalla wax allaaliya waxa switch dunida yaallo la isku daro maskaxda adiga ku saaran intay process gareyn kartaa ka badan sida daraadeed ayuu axad ulculamaa waxa uu ku tilmaamayaa haddaynu isticmaali lahayn buu yidhi xaasuub ama computer maskaxda uun bal ku dhodhow haddaynu isnaana sameeya waxa dhici lahayd buu yidhi inaynu samayno guri 10 dabaq ka kooban oo 770 mitir square ku yaalla buu leeyahay
يعني بني آدم كيبلدي سي وحي سادوس كو خدخدو كمبيوتر استرادو مسكخدان يرا adiga ilaahay kugu rakibay shaqaday qabato wax u eeg wax qaban kara in la sameeyo waxay qaadan lahayd buu leeyahay xajmiga 770 mitir square oo 10 dabaq kor loo dhisay xajmi xaasuub leeg buu leeyahay barnaamijyadiisa imisa la sameyn karaa buu leeyahay taayada reeba yani programska ku shaqeyn lahaa inta lagu sameyn karayo iyada reeba waxa meesha yaala wuxuu yahay طاقada inugu jirta inta ay leeg tahay iyo waxaynu ku isticmaalaa aad u kala yar idan inagu waxaynu shaqo ka dhiganay طاقada inta leeg ama awoodda inta leeg inaynu caatilo oo aanay waxba qabanin wax qabasho la'aantu waa maxay qofka bini aadamka gacantaada maalan haddaad halkaa dhigto gacantaadu dhaqdhaqaaq bay ku shaqaysaa haddaad halkaa dhigto 10 daqiiqo haddaad ku hayso marka dambe ku daalaysa baad leeyahay gacantiba way kabuubiyootay haddii lagu yiraahdo saacad ku hay inaad qaadiba kari weydaaba laga yaabaa hadhow ku damqato waayo shaqadaad tirtay cudwi kastoo bini aadam ka mid oo la shaqo tira waa nooca kan cudwiga haddii la shaqo tiro hawlgab baa ku dhaca hawlgabku soo ugu dhacaya maalan مثال بسيط أنا دسياني كيقول داعي بربراني كو كسرعنايا قاعد فوشة من القلبي كعم بانك شباب دبتنا بهلا يريار الله فها قاعد تكوشرايا براي ميت كم إذا شفتاي الله يركبه الله هلك الله يحري شان يفرتنا عشان مركي كو حدنيت بالله يغفري جبوت الله يغفري دبتنا وحلي دوله وكوشبانت دي بهدنا الله يركبه يروبان لتجي تضباط المعلومات مركي يقول ركبنيت بالله فري دبتنا waxay dhahan wali way ku jabantay ma laftii yaray wali ma rakibmin laakiin gacantaydii ba halka dhaafi weyday waa 90 degrees waa sidii loo xidhay ee bahashan cad loo igu xidhay ayay gacantiina joogtaa gacantiina halkaas ay joogtaa debtana waxay igu yiraahdeen laftan yara jabtay iska ilaa imka khatar kala ku haysatee gacantan sidaynu kala bixin lahayn baynu tijaabinayna laftan iska jabnaato waxba la ima qabtee physiotherapy baa la diray halka dhudhunka iyo muruqa sare cududa la igu dhaga waa la iga cabaadiyaa saddex cashaan imaada xoog baa la qabtaa waa la iga cabaadiyaa marka qayliya cabaar baa la sii daaya waskaga tagaa sidii ay maalinba in yar u kala baxaysay maalinta bayda gacmaha isku dheerari labadeedii gacmood way sileegeen ma kala gaabna tii lafti kalena waaba iska bogsatay intii tan laga cabaadinay maxaan u jeedaa يعني waxaan uga jeedaa gacantii bini aadamkee shaqada taqaanay sida tan ahayd aan waxba qabin hadii la xidho way hawl qabtaa hadii la xidho sida laga dhigo way hawl qabtaa mushkiladda ina haysataa waxay tahay taaqadii allayna siiyay awoodeeni ayaynu xidhnaa markaas waxa la inaga dhaadhiciyo la inoo sheegay inaan waxba la qaybi karin wax qaybku inuu adag yahay in buuga wax lagu qortaa inay fiican tahay computerka iyo waxaan la isticmaalay inay fiican tahay maskaxdu waa ku damqanaysaa dabeetana xad baynu gaadhnay safxadii aan idin lahaa aan qaybno haddaad akhridabada madaxu ku xanuuno ood wareerto qaadiba kari weydo laakiin waxaad u baahan tahay in yar lagu tadriibiyo in yar gacantayda inta la kala furo kale in kala furaabad u baahantay jirka bini aadamka ahi waa sida loo train gareeyo waa sida loo tababaro in badan baynu tusaalayaal waxaynu ku bixinay kuwan wax cayaara waxaad aragteen kuwan wax cayaara nin waliba halku cayaara buu weeyay waayo uu train gareeyay kuwa feerka cayaara qaarkan sare u waaweyn mijuhu waa wax dhuudhuuban sababtoo waxa weeyaan qaarkan sare loo train gareeyaa kuwa kubadda cayaara mijaha waaweynaada qaarka sare waa wax dhuudhuuban shaarka marka iska bixiyaan waa feedha yar yar laakiin cagu way waaweyn waa loo train gareeyay yani qofka bini aadamka meesha la kobciya kobocda haddaad maskaxdaada tijaabiso inaad wax qaybi karto wax xifdii karto wax baran karto waa wax aad u fudud Bukhari haddii la qali lahaa maskax inteeda leeguma ku jirtay kama badnayn kuwa kale casrigiina dhaafay qarnigiina dhaafay saynisyahankii dunida ugu weynaaye ay yidhaahdaan waa saynisyahankii soo mara qarnigii 20aad waa Albert Einstein waa oday yahuudi jarmal asalkiisu ahaa yahuudina ah yahuudi jarmal markii dambana Mareykan noqday waa cilmiga physics-ka nimankii ku takhasusay waa ninkii aragtidiisa ay ka soo burqatay nuclear weaponkan la sheegay iyo fikradahan TV-yadan iyo waxan iyo waxa soo dhamay nadariyaad physics uu leeyahay bay ka soo burqadeen
waxay yidhaahdaan waa caqligii ugu weynaaba iyagu markay wax qiimaysanayaan caqliga dee intoodunba yaqaaniine waxay yidhahdaan markay intoodii isku dardareen waa caqligii ugu weynaa ee qarnigii 20aad dunida soo mara bay yidhahdeen sidaa daraaddeed bay waxay yidhahdeen ninkan yaynan aasine bal aan eegna maskaxdiisa waxa ku jira Einstein markuu dhintay baa la qala iyadoo la rabo bal in la ogaado meesha tan waxaan ninkan ku jira iyo غير caadiga ah waxay yidhaahdeen Einstein maxaa loogu tagaad u malaynaysa qof bini aadama caqligii baa loogu tagay bay yidhaahdeen wax ka badan oo ku jiray maskaxdii Einstein lagama soo helin laakiin muxuu ku gadisnaa waxay yidhaahdeen wuxuu rumaysnaa inuu ka shaqaysiiyo oo adeegsado idan Bukhari wuxuu rumaysnaa inuu maskaxdiisu ay u tahay maktabad imaam Ahmed wuxuu rumaysnaa wuxuu xifdiyay inay maktabadiisa yihiin أبو زرع وحو الرميسنا مكتبدي سوحو قيبين يتاهي شافعي ساسو الرميسنا أئمدي هو رساسو ننكو علمي سلابتي سكسيتي كمانكم ككتابة ينشيغي إنه إمام الطبري بارددي سوحو لي يعني دين يريد تفسير قرطة همدا يراتي بو يرودي مكا وحبا سدن مجلدود بو يريد تفسير سدن مجلدود بو يريد وحانو لي همدا يراتي ما يرانتم بالغو بلابا مايا بعض العلماء وحي قرين كتاب لا يداهدو من حفظ القرآن بعد 40 بن قري أفرتنشير رقي دافيا قرآن كغيبي ومحاد قرآن شيغيسا أزهر أئمة دين كمدها كنتن يا فرتشير بوكو بلابي وحقرسته وإمام الأكبر للأزهر لكن كنتن يا فرسو مقالة يسجد شوقي مركو أفريا كنتن شير مريي أيودي نيومد وحبرتي دورته وقت بدن بابا كارلو مايه وبلعبه أزهر بو سو غلاي دبيتنا waa soo waday waa soo takharujay imaam al-azhar isagoo ah buu dhintay 90 jir daadiisu marayso 94 sanadood meelahaas aan filayo inuu ku dhintay 90 magalaha laakiin wuxuu dhintay isagoo imaam azhar yani wuxuu aaminsanaa awoodiyo taaqada ku jirta inay wax kasta qaban karta ayuu aaminsanaa idan waxa mushkilada meesha taalaabay leenahay ma aha waxa mushkilada meesha taala waxay tahay koow inagoo jahli u inaga sugayay nafteena ilaahay inuu ina leeyahay subhanahu wa ta'ala wa fi anfusikum afala tubsirun wa fi anfusikum afala tubsirun ilaahay ba subhanahu wa ta'ala inoo sheegayo le wa 'allama aadama al-asmaa kullaha aadam waxa magac jiro oo dhan baa la baray waxa la baray aqoon malaa'iga ay ka caajistay oo sameyn kari weyday هذا آدم إن كيسو ما ضنته مالك لك ما دمان آدم كايل هيلي سبحانه وتعالى أسماء أردن بالله بري إن كيسي باتي تامعني هدو حويا أنا ندوح كستبص بين كرتو بس هذا مركب ماشى تعالى وحويا جهل إنه نفتينا جاهل كنا هي أي وحي كانت يناد أركي ويدو حوق قال لك سي سبحانه وتعالى يا أود هاي سطو سيد الدراديد أي واحد عضي إن أد وحبا قيب كري ويدو أما إن أد وحبرن كري ويدو أما إن أد حافظ نقن كري ويدو نبي محمد عليه الصلاة والسلام حين ليه المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان نبي عليه الصلاة والسلام وحط المام يا مؤمن كحوجا إمام النووي وحلي حوجا لشيء وقوة نفسية بولي مؤمن كحوجا باك خير بدن بو النبي يقول مؤمن كضعيف كا لا بد بنا خير باكو تشرو دي إيمان باكو تشره نبي حين لا يحرص على ما ينفعك احرص أو احرص لا بد ولا شيء كد دال بالليل وحكو أنفعيه نبي محمد عليه الصلاة والسلام عين كاسبين ليه وحاوين ليه نبي عليه الصلاة والسلام واستعن بالله ولا تعجز ولا تعجز ولا تعجز لا بد ولا شيء إلهي كالميس سبحانه وتعالى يمرنا بها عجسنين عجسga ugu weyni waa adigoo awooddaada arki waaya ina aadamkii walaalkii dilay waa kii awooddiisii ba arki waayay dabeetana walaalkii uu tuurta iskaga sitay ee ilaahay subhanahu wa ta'ala u soo diray maxay quraab tuka waxbara
dabeetana wuxuu yidhi acajastu an akuuna mila hada alghuraaba fawaariya sawata akhi war ma waxaan ka caajisay ma waxaan ka hoos maray tukaha kan xoogga wuu qabayey jahligaa hayay xooggiisii wuu qabayey tukahani in cilmigii ku kordhiyey jahligaa hayay tukahani silsiladii ku xidhnayd buu ka furay waa silsiladaan raba inaynu galabta iska furno yacni qof bini aadam oo ilaahay subxaana wa tacaala uu abuuray oon wax qaybi karini ma jiro bal waxaan tilmaamaynaa leenahay nebigu calayhi salaatu wasalaam ducooyinkiisa saxiixaynka ku yaalla bale ay abwaabta u samaysteen baabu tacawudi min aljubni baabu kada ay abwaabta u samaysteen waxaa ka mid ah saxiixaynka iyo kayrkiiba ku soo arooray ducada nebiga inay ka mid ahayd nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu ilaahay ka magan galo allahuma innii acuudu bika min alcajsi walkasal bale waxay ka mid tahay awraadda yowmiga laga rabo qof kastoo muslimi inuu akhriyo subax kasta markaad soo toosto waxaad tidhaahdaa baa lagu leeyahy ilaahu waxaan kaa magan galay cajsigu waa cadam alqudra iyo kasliguna waa wixii aad awooddo ka wahsato ilaahu awood darran kaa magan galay iyo wahsi iyo tabardarro waxaan tilmaamaynaa leenahay mushkiladdeenna waxay tahay hankeennaa yaraaday sida awgeed ay waxaynu ku qanacnay in hoose laba mid qaarkeen waxaabay ku qanceen qur-aankana inaan la qaybi karin koow qoladeenna qur-aanka qaybtayna waxa laga yaabaa inay bes halkaa ku qanceen halkaa haddii la gaadhay halkii u sarraysay in la joogo laakiin waxaan leenahay muslimka maanta jooga iyo muslimkii hore waa isla bini aadam bal innaga ka fursad badan markay furaska tahay furaska bukhaari wuxuu lugaynayay intuu bukhaare ka soo lugeeyey ilaa masar ilaa ciraaq ilaa shaam ilaa iyo xijaas ayuu maalinba dhan u socday cimrigiisii lug buu ku dhammeeyey siduu u waday isagoo ururinayay laakiin adiga waxaa laga yaabaa kili kombiyuutarku aad taabataa inay kaa xigto ama kitaab aad maktabadda ka qaadataa inay kaa xigto wuxuu bukhaari intaa la lugaynayay furaskii adigaa haysta laakiin waxa yaallaa waxa weeyaan hankaagaa yar hankaynu niyaddaynu hayno iyo hanka aynu hayno iyo waxa aynu isleenahay xaqiiji baa yar marka horeba meel fog baanad kaba fakaraynin qofka bini aadamkana hadduu hankiisu yaryahay waxba maaha casriga kan musaabaqaad baa la qabtaa sunanka ka mid ah riyaad saalixiin baa musaabaqa loo qabtay inan muslimadoo masriyadii 2 maalmood bay ku qaybtay atacjabuun ورياض صالحين كا ولا بكونوا حديث ما لم بكونوا بس كتورت لا بدي يكون حديث لا مع الموت بيكون قيفت منى السعيد قبل الله يدا معروف كا وقبل حفظي يكون معروفة بلوغ المرام تضبط ساعات بيكون قيفت بلوغ المرام مسومة تغانين كتاب كارد أنا بلوغ المرام كلا يدا تضبط ساعات بيكون قيفت منى السعيد وحي قيفت أنت إلهي كتاب كيس الصحيحين كا بل وحي قيفت أنت الأمهات ال14 وهويني أفرية طبعاً كتابة سنن كوجوا وين بكرك كهيسة دتك هذا النور الشيخ محمد حسن ولا الدودو شنقيط يا شيخ غنا والشيخ كنت تشرقاري مكو أفرتك هداف 40 فنا بحفظ سني وهلقي يا مكتبة هذا أنت كتاب تالي أنت قلبك يسقط شراين وكيسك وبطه وأنا قف بني آدم أنا أفرتك بقاري أما يمكن أفرتك كطلابية وهن وحكني علماء الشناقطة شنقيط مركا تكتو قف أن وحو يقان قيب سنيني بما تشوقه شناقطتهم بني آدم كقارة بني آدم ككلا مايا وانا أفريكانا أو ينو إيك وريرمية وجيلا هايستايا انتا إنو هايسانو ونولش انتا إنو كغانو الله ينكسي اللي دتبا كغانو لكن وهو ذا حفظ سنية نينكستو شيخ لغو شيغا نينكو بو محمد حسن ولا الدودة وقابا وحلية هي أفرتم فني إن كان وحكاء قون ده شيخ لما يرهده بيري أفرتم فني إن كان وحكاء قون قفك وحو يقانو قيب سنية وهو حفظت وين ما إن الصوماليات وإنجليز كشوكا إنجليز كي من مالها المسلمين تو يمي صبح يبيري ما كان صلاة الصبح كبحان فرستاي الله تضبطه دور بلاد بكو قيب قرآنك dabeetana wuxuu ku xigsiiyay alfiyat ibn malik in yar buu ku qaybay wuxuu ku xigsiiyay alfiyat suyuuti in yar buu ku qaybay
wuxuu ku xigsiiyey shaatibiyada in yarbu wuxuu soo qaadaba iska qaybayo sheekh imka urduniya oo khaliijka culimada ka shaqaa ka mid ingiriisku ka yimi ragii rabshada badnaaya meelaha ingiriiska joogay buu dabeetana waa iskaga yimi meelahan buu yimi urdun 2 sano meelahaasuu masaajid isku xidhay hadda waxaad aragtaba uu qaybsan kitaabka aad istiraado balkan sheeg isagu korku ka haya waad u bilaabaysaa kitaabku akhrinaya ma aha bashar caadiya dadka kane yani dadka ka gadisan maaha hawshaad haysaabuu hayaan shaqadaad qabataabay qabtaan saddex dumaray qabaan aabayeen caruur bay u shaqeeyaan waxaad wadaabay qabtaan laakiin xagee wax iska weydaarsan yihiin waxaan leenahay waxa wax iska weydaarsan yihiin labadan shay baa u baahan inaynu fahmno inaynu han yeelano caali ilhimma inaad noqoto qofka caali ilhimma waxa lagu yaqaanaa inuu caziimo leeyahay inaanu xamaas wixiisu ahayn laba cashiya maalintaad xamaasadooto inaad dabeetana laba cashina iswereeriso hadhownaad xagga daba kitaab ka tuurta maya inuu noqdo qof caziimo leh faidaa cazamta fatawakkal cala allahi buu ilaahay yidhi markaad go'aansataan ilaahay subxaana wa tacaala tala saarta qofka caaliyulhimmiga waxaa lagu yaqaanaa waxa hoose kuma qanco waa ku imaam ibnu aljawsi lahaa haddii buu yidhi nebinimada la odhan lahaa farsamaa lagu helayaa iyo barasho inaad wax nebinimo ka yar raadisaa waa kuu doqoniimo buu leeyahy yacni meel nin maray inaad adigu ka hoos martaa waa kuu doqoniimo waad mari kartaa weeyaan waxaynu u baahannahay caaliyulhimma waa qof raba shaqada uu qabanaya inuu xoog ku qabto yaa yaxya khudi alkitaaba biquwa baa ilaahay yidhi yaxya kitaabka xoog ku qaado awood isticmaal waxaa ilaahay subxaana wa tacaala inoo tilmaamayaa ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا نك الددالة إذا أنت سو آخرتها هي إلهي سبحانه وتعالى وأوغا مهد عليا وحلا نقفك عالي الهم جاهي وقف وقتك بخيل كواه ويلا بيه طبعا من هدي بيت قرآن لقو قيب يمس ساعدات بكالوما محد لبيه طبعا كان كاغا دغاي وحوين waxay yiraahdaan culimada nafs insaanku bay yiraahdaan at-ta'wiid waxa la yiraahdo isticmaalaha wixii loo baahnaa markuu qaban kari waayay bay yiraahdeen meel kale isku mashquuliyaa si uu meel kale uga muuqan karo sheekada iyo maxaa la yiraahdaa isku mashquulinay deetan xagaas ayna ka wada muuqan masalada meesha taala waxa way waxay yiraahdaan aqliga bini'aadamku waa laba qaybood qayb waxa la yiraahdaa al-aql al-waa'i قيبنا وحي كشجان العقل الباطن أو اللا شعوري العقل الواعي وحي كتل ماما وعقل سوتشي ده وعقل التحليلية وحن حواسته أي أركته إيش يدكت يا مقلك يا درينك يا وحا كان كور رما فكرة وحشاجة عقلنا وحلا ده وعقل الباطن عقل الباطن كو وحي دهدان وحجم وين سوى عقل الواعي قلنا وحير بيدهدان لكن وحير به قامية بيدهان عقل الواعي قمرك وحودك ما بيدهدان وناخذها دون توضا دون وين بوضا لكن يسقوا ناخذير عقل الباطن كه وحل قليا ملومان وحتسوي باهنت هنا تكدر دعسه شيء قمرك عقل الباطن عقل الواعي كسر وكم فكرة تالية ورمية ورك الشيء لكن أنت تسوي دنا وسوي ده مركز هردنا سنة وصحده ومغني عقل الباطن هو يسقو ما صحده هبني ما لبوا وسوي ده وحيل له دي مروا إلى عليها عقل الباطن كوحة وحلوجو ديبا كعلعلن يكدادعن التصديق والتكرار باوجو بدن بين هذا إن لفهم سيو لقى دادعيه لقونا علعليه isagu bay yiraahdeen wuxuu gacanta ku dhigo wuxuu ka dhigaa tabiica iyo sajiya iyo caada iyo suluk buu bedela yani dhaqan buu bedela mesela waxa lagu sheegay xadiis nabi kaleey salaatu wasalaam oo ah in midigta wax lagu cabo wax lagu cuno wax lagu qaato saxan kama xadiiskaas aynu haynaa maalinta koowaad xadiiska lagu sheegay sheekhu kitaabka dhigaya adag fadhiday waad fahamtay xadiiskii هذا مركز مقاهدة تكتار شاهد البطان ما بدح نسكير قدام كسو شيخ خوي كده بدك تقعد أتذكر دكتور بدك تقعد وين اللي بيبات الشيخ بدك تسكي عبت
saddex afar shanta casho hore marna bidixdaad ku yara qabanaysaa marna midigto markaad dhexda marinaysa umaad xasuusanaysaa adagaysaa masoonaysa war shaydaan baa nala cabay midigtaad ku qaadanaysa laakiin markaad muddo wado automatic bay isu bedeshaa koob baa la soo dhigayaa midigtu baad ku qaadan weligaa bidixda ku qaban maysid waad ka barata waayo waxay dhahdaan caqli albaatinka ay degtay uma baahnid inaad fikirto tiraahdo ma bidixdan ku qaadaa ma midigtan ku fikrad lagama rabo inaad tiraahdo bidixda iyo midigta teebaa go'aan ku qaadanayaaye waad iska fiiqaysaa qoladan waxbaadha waxay dhahdaan maalan askarta askari haddaad doonaysa bay dhahdaan inaad garato waa la joojiyaa dhaqaaqa dheh bidixdu ka dhaqaaqaya waayo iyadaa lagu tireengareeyey askarigu markuu istaago bidixdaabaa dee socodku ka bilaabmi jiray haddii aad askari taagto isiraha socod bilow bidixdun buu dhaqaajinaya halka qof kale laga yaaba mar inuu midigta qaado mar bidixda kolba tii u fududaata inuu qaado idan caqli albaatin bay dhahaan waa waxa loo dhiibo waxa loo dhiibaana in lagu celceliyaa unbay ku xidhantay faatixada miyaa gaftaan faatixada goormaad akhridaa adigoo aan soo jeedin baad akhridaa salaadaad xidhataa allahu akbar sidaad u wadwaday unbaa maskaxdu iska tagtaa faatixada wala daalintumaad miirowdaa soo ma jirto yaa akhrinaya ilaa adigu waad maqnayde yacni caqli lwaaci baa maqnaa caqligii soo jeeday ayaa maqnaa laakiin caqli albaatin baad u dhiibtay mar haddaad caqli albaatinka u dhiibtay ma dayacanto waa iska wadaya isagu wala daali intaad ku miirowday uun markuu marinayay waxa la mida xifdigu markaa marna waa xifdi iska sariic oo intan yara saruun intaad dulka xaadisay caqli lwaacigaa haya oo safxadaad ka fakaraysaa oo aayadii ku xigtaad baadi doonaysaa oo kelmadaad eegaysaa oo maskaxdu waxbay xisaabinaysaa intaa weli caqli lwaacigii baa xifdigaagu ku jira laakiin haddaad daafiso ka kale u dhiibto uma baahna inaad ka fakartee sidaa faatixada loo akhriyo ayaad u akhrinaysaa idan waxaan leenahay waxaynu u baahannahay inaan wakhtigeenna ka faa'iidayno oo isku dayno inaad wakhtiga ka faa'iidaysato aad noqoto qof wax qaban karaya waxaynu u baahannay inaynu ilaahay barino tala saarino gabadhaan ilaa 16 jis bay qaybtay waxay tidhi marka aan dareeriyaba maalin qaybaba waa sujuudaa una sujuudaan ilaahay ku baryaa ilaahu intaan aadaan kuu dhiibay ma ilaaba bay tidhi intaan ilaahay u dhiibaba waa qayba un bay leedo markaa dhammeeyo ma idhahdaa ilaahu aadaan kuu dhiibay nabiguna wuxuu ina leeyahay calayhi salaatu wasalaam acjasu nnaasi man cajasa can idducaa dadka waxa u caajisaysan ka ilaahay baryadiisa ka caajisa dadkaasaa ugu caajisaysan buu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam idan waxaynu u baahanay wax kastoo aynu qabanayno inaynu ilaahay subxaana wa tacaala u tala saaranno waxaynu u baahanay maalan cilmiga barashadiisu waa tarkiiska bay yidhahdaan caqligu marka wax qaybayo waxay yidhahdaan 10 daqiiqadood oo tarkiisa ayaa 10 saacadood oo aad kolba derbi daawanayso ka fiican ولذلك بيد هذا أن أرضي حافظ كوا حقيبية وإنه قيبة ميلو عقل التركيزين كره وأنو وح مشغولية أركي كارينو سادر أدب العلماء واحد أنا أنت أقول بدن لا قيبس وح وفي عن سحورتي يوحي كدم بي إلا صلاة الصبح إلا أنت عسي وهي وقت قابل إن جوي جنوا هادي ضوضاء يقيلية بوغتون مغلي ما يصير علاشنا بيد هذين مبوح علاش هذي بوحدة أنا وين كار وهذا ديجا بين تبدأ عبتود مشغول إيسا لكن مركب بيلين شركنا وفدودي هاي علاشنا مبوحدة ديجا أنت أقول بدل مسكح ذا قاعدة إيسا قفكنا وتركيزين كرابين هذا إذن ووقت الحفظ بيكون المامي كان على مدى هراء إنه يهاي وقت وقفي عن وقفك وحفظي كرو واحد كلاو أنت هاي إمام حسن البصري بوحوا لها ورنفت بيقول هذا حقكم مشغولين باطل كيكو مشغولين إيسا nolosha ma jiro waqti firaaqo leeyahay imika bishan horta waan shaqeynaya bisha shaqeynaysa sana qayb waayo noloshu waqti firaaqo ama ma leh mar kasta hawl nooca un baa ku haysata sadaradeed buu wuxuu leeyahay imaam xasan al-basri war naftan hadaanad iyada xaqa ku mashquulin buu leeyahay iyada baatilka kugu mashquulinaysa adigu shughulba waayimaysid adigu shughul waayimaysid mar hadaanad shughul waayeen adigu shughulka xadee shughulka aad rabto inaad qabato ha noqdo mid adiga ka soo fulo ahmiyad ku kala leh oo priorities ku kala fog waxaad kale u baahantay albi'a almuthabbita inaad ka tagto dadka cagsi galiye waxba lama qaban karo waxba nabi muhammad alayhi salatu wasalaam wuxuu jeclaa tafaa'ulku waa maxay waa inuu qofku khayrka had iyo goor sheego wanaaga in waxa la qaban karo culamaa nafsi waxay yiraahdaan الرسائل الإيجابية والرسائل السلبية وحلا يراهدان شيئان وحلا يراهدان رسالاتك
iijaabiga positive-ka wanaagsan iyo wargeysyada ama dhambaallada negative-ka ama xun maalan bay yidhaahdaan ilmaha yare qur-aanka aad u dhigaysa haddaad tidhahda qabi iyo waxba garan maysid ximaar weeyaan kani eraygaasi wuxuu ka dhigi karaa bay leeyihin ximaar culamaai nafs waayo waxay leeyihin haddii lagu celceliyo caqlulbaaطinku galaa bay yidhahdeen caqlulbaaطinka waxa galaana hore uma soo noqdaan saa daraaddeed wuxuu ku qancayaa bay leeyihin inuu fashiliyey oo aanu waxba qaban karin waxa ka roon bay yidhaahdeen tafaa'ulka iyo kalimaatu tashjiica waad fiicantay inaad tidhaahdo inaad adigu yara samayso tidhaahdo maantaana tarkiisine si wanaagsan baad u qaybay waa ku aqaana hebel waad qaybi kartaa 5 minute halkaa u bax intaasaa ugu filan bay leeyihin inuu qaybo walidaalika xataa waxay yidhaahdaan markay culamaa kuwan psychologiga markay ka warramayaan wax haddaad rabto bay waxa laga yaabaa nafteenna inaan wali baran wax haddaad rabto bay dhahdeen nafta inaad ka dhaadhicsa intaad cidla fadhiisato bay yidhaahdaan u sheeg adigu naftaada kor ugu dhawaaq bay yidhaahdaan ma arrintaa ka warran waxay leeyihin intaad cidla fadhiisato waxaad tidhaha qur-aanka waan qaybi karaa 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 waxay leeyihin waa risaala loo diraya bay leeyihin caqliga aamusnaa xataa bay yidhaahdaan sida negative-ka ah u isticmaalin bay yidhahdaan waayo tadambuu qabtaa bay yidhaahdeen maalan negative ku isticmaalin yacni ma awoodi karo inaan ma ihi faashil ha odhanin bay yidhahdaan faashil ku qabanayaa bay yidhahdaan waxaad tidhahdaa naajix baanay waan guulaysanaya daadhe bay yidhahdaan waayo waxay dhahaan caqliga bini aadamku haddii lagu yidhahdo maalan iminka bay yidhaahdeen faras madow ha ka fakerin maskaxdaadu marka ugu horraysa faraska madow bay qabanaysaa bay yidhahdeen diimkan ku yidhaha faras madow ha ka fakerin faraska madow bay maskaxdaadu markiiba u tallaabaysaa laadii hore bay yidhaahdaan waa negligible ma ku xisaabtanto sida daraaddeed waxay culammadu yidhaahdaan التفاؤل والكلمات الطيبة قفكو إنه استعماله وياه نفط إنا دوش نلش الصعوبات بيلاده ودالي كرتا مشكلة باكاهر ما كرتا وحاسي لكن وحلو بهينة كدول بودو وحلو بهينة طاقات كي كوكو كيت سنائنا ديبو أديكسته وحلو بهينة سديبين نلش سديب كاوغول ليتا وحلو بهينة مركاينة تنهضا وانقابن كرا وانقابن كرا وانقابن كرا واقيب كرا واقيب كرا واقيب كرا سيدا أوجد nafta inaad adgu mashquulisaa baa loo baahayay waxay yidhaahdaan bii'ada markaa qofka cajsi gelinaysa inaad ka guurtaaba ku fiicantay la saaxiib had iyo goor mid kaa qaybis badan iyo kaa sii horbooda oo kusii hor socda ninku wada walidaalika baa waxay yidhahdaan jawharadu bay yidhahdaan haddii jawhara meel nijaasa ay ku dhacdo shay thamiini oo aad istiraahda taahiri biyo badan haddii lagu shubo aakhirka way taahiraysaa laakiin waxa ka fudud bay yidhahdaan intaad ka qaado aad maydho in yaroo biyo nuskoob baa nadiifinaya maydhaya laakiin halkii uska guyaallay haddaad biyo ugu darto waa taa macnaheedu waxa la mida bay yidhaahdaan dadka musbitiintii hadday kugu xeermaan un dad le waxba lama qaban karun haddaad la noolaato adna waad caajisaysaa marka dambe waxaad isku daydaa bay leeyihin dadka duulaya inaad la duusho dadka wax qabanaya inaad la qaban karto walidaalika ikhwatii fi lcaqiida waxaynu u baahanay waxa weeyaan oo lagama maarmaan oo qofka muslimka ay tahay inuu adeegsado kow inaad niyada hagaajisato oo ikhlaasi niya ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii dartii loo qabtaa sugmay inaad niyada hagaajisataan laba waxaad u baahantahay inaad naftaada dareentid oo fahamtid oo garatid haddaynu leenahay 60 sannadood haddii second kasta 10 shay lagu sheegayo hal loo qaybiyey milyuun awooddii maskaxdaada ka mid ah baa la isticmaalay bay tilmaamayaan adna waxaad odhanaysaa waan gaboobay ama waan weynaaday ama waxba ma qaybi karo waa dafiraad aad ilaahay nimcadiisii dafirayso waa gacantaydii xidhantay una aanad ku dayin inaad kala bixiso يعني waxaad u baahan tahay inaad kala bixiso aqligaaga inaad soo celiso waxaad u baahan tahay daaqada alla ku siiyay subhanahu wa ta'ala inaad ka mahad celiso inaad ka mahad naqdid oo dib aad u adeegsatid waxaad u baahan tahay markaa inaad ilowdo cabashada iyo ma awoodo iyo cawaamisha nafta dib u dhigtay iyo waxa soo dhan inaad ilowdo aad mundafic noqoto aad hore u socoto waxaan leenahay waxaad u baahannahay al-awaamil al-mu'athara al-kharijiyya waxa nafta dhiirigeliya مثلا haddii la wadaado halka 4 saacadood istaag waa adagta 4 saacadood saamagu taagnaa karaysa
ciqaab bay noqonaysaa xubin waliba oo ku damqanaysa laakiin haddii la yidhaahdo hargeysa maanta ninkii 4 saacadood taagnaadaa $10 buu leeyahay cid dhici lahayd inaad arki jirta ma malaynaysa lama arkeen waayo $10 baa muuqda $10,000 haddii la sheego 4 saacadood oo qudhoos la sara taagnaado dhabar iyo meel ku xanuunta baad isgeejinaysaa dan noloshu waa caynka waa laga yaabaa markaynu leenahay waxbaro caraaqil baa jiraysa ka hor imanayso laakiin waa inay jiraan mu'atharaad khaarijiyo iyana ku dhiiri gelinaya dee mu'athirka weyn baad garanaysaa jannatin carduha as-samaawaatu wal-ard uciddat lilmuttaqiin hadday kuu muuqato janno cirkan iyo dhulkan baleeg iyo waxaan oo dhan ka weyn inaad helayso 4 iyo 10 iyo 20 batee taagnow 10 iyo 5 iyo 10 baa u ictikaaf inaad quraan xifdido culamadan ku sheegaan leeyahay waxaan baadhay man xafida alquraan baan ku dhuftayda kutubtay qaybsayiin wad qariibsanaysa xafida alquraan kada kada dabeetana waxaan leenahay qof waliba wax buu qaybi karaa daa kasta joog cid aan la hadlaya maanta ma ha dhalinyaro way dhalinyaradu hadday soo bilaabayaan fursadii bay haystaan waa da'da roon ee isla waqtigiiba idin dhaafay war habeen idin kama tagin ninkaasi kontoriya 40 jirka ahaa 4 iyo 50 sano jiray baan leenahay sheekhu Lazar noqday idan aqligiina alla uu ku siiyayna waad haysataa waxaad kale u baahantahay waxa weeyaan waqtiga inaad ka faa'iideysato waxay yiraahdaan hajmatul waqt inaad adigu waqtigaaga weerar ku ahaato waanu ka dayacmin aad ilaaliso waxaad u baahantahay makaan munaasib inaad heshido aad wax ku qaybtay ama wax ku xifdidid waxaad u baahantahay bay yiraahdaan muntadim inaad noqoto qof nidaam raacaya inaad noqoto waxaad u baahantahay bay yiraahdaan tikraarkaasi tirada badan leh inaad samayso waxa runtii aan sheegi karnaa ama akhriyi karnaa wax badan waxaan ka warramayaana wax khayaal maaha حج كمدة حججك أيان تجي أحد العلماء بان خيمة دي سكوسا بوقرني نمان دل يرابا لا تشوفوا فتاوي ده كفتوني مركز سوحد نمان كم وحن كنت جابني إن السنن كقيبان دبتنا مركز القرآن كي قيبان سنن كينا وي قيبان إما كان مسند إمام أحمد أفرت كونه حديث إمام أحمد هذا نوضا بيقولوا ينا وقيبيان وأنا من دل يروس كعادية أنا العادية كنور deinaga waa la inagu beegin waxa la inay waxba lama baran karo waxa la inay waxba lama qaybi karo waxa la inay waxba lama noqon karo sadaraadeed baynu waxba noqon weyne laakiin maanta waxaan idin leeyahay war waxba noqon kartaa bukhari weydin ku jira ee wala soo qaban laayeeyo bukhari kalmad ba soo saartay isagoo fadhiya jalsadii isxaaq ibn rahway ahad a'immat alhadith shuyukhdiisi kamida isagoo jalsadiisa fadhiya ayuu sheekhu maalintii wuxuu yiri ما الله هلا لو مد إذن كإذن كم مدي تلو مو أرورية حديث النبي كاس صحدي كلمة ده بخاري قب كتري سقوا جلسة إسكفر ديا أيهم بشيخ يسوي حدي تلو ما الله هلا نين إذن كإذن كم مدا وأرورية حديث الصحيحة هذه الكلمة بقى أنفع ذي إمام البخاري ده بتنوحه حدي إنه كتابك البخاري قرأ لكن بخاري إنه قرأ جهده كبحية هبينك اللباطن شير بكعي شري مررك قاركود هبينك اللباطن شير أي مررك قاركود فينوس كشيدان شري إمام الذهبي إمام البرزالي محدثها إمام المزني أي الرجل محدثين تودى تشوجينا أيام أنا أركي ذهبية وحقرية ذهبيات بو فرفعنا ذهبي وحكوه الري علم القراءات هي قرآن هي حفظ هي حاجة سكوه الري دبتنا إمام البرزالي مبارك يسقوا وحقرا يوم كسوري خط كاجو في عنا وخط محدثين كلمة داون باب قبت ربا ليري إمام الذهبي مركز صور دقائق علم الحديث والذهبي هو ابن حجر وعبي بيا إلى وحفظ قيس هيسي نين بايري ورفر في عنا دي فرتي أهل الحديث كاد لا ضيون بالويري فرتي أهل الحديث كويا شيء دبتنا يعني أرى يبقى الله شيء إمام الذهبي دبتنا كان دقيقين ونقضي إمام الذهبي درس كان ما أنت عن وضعي مركز وحان ربينا ندين شيء علماء ديني تكتي dad khawaariqul caada oo gaar oo qiina gaar oo meel gaar laga sameeyay inaan ahayn saynis yahanadii aqoon yahanada maanta jooga dunida la leeyay cirkay wax u diranay halkan ka baxeena inaanay dad gaar ahayn laakiin waa dad ku qancay
in ilaahay awood uu siiyay ay ka faa'iideyn karaan waa dad ku qancay inay samayn karaan wax oo awoodi karaan nalkana arkaysaan ninkii bilaabay Watson 99 jeer markuu ka bixiyay markunaadkiiba u baxa tasmacuun laambad buu rabay inuu shido cilmigii bariga bilowga ahaa ee waday waa wadaa waa bixi weydaawn waa ku soo noqdaa waa wadaa 1000 marra buu ku shiday bay yiraahdeen markunaadkii buu ifiyay tawaynaga wali ifisanayna laambada dunida ninbaa gam i waayay inuu ay la noqotay inaanu ka gamayn bahashana baxda mooyaane dabeetana markuu gam i waayay unbay aakhirkii laambadii baxday dunidoo dhamina waa taa wada laambada noqotay kelmadaan raba maanta waxay tahay programmingkii hore ayaa formatting la idinkaga sameynaya taarifoon luqadda computer waa taqaaneen baan u malaynaya shayga marka dib loo masaxayo waa la format gareeyay bay yiraahdaan waxaan rabaa in maskaxdiina dib u format gareysaan ka format gareysaan ajzigan iyo wahniga kan iyo waxba lama qaban karo taa meel inaga dhiga waayo dadkii horena waan idinka sheegay kuwa maanta joogana tusaalahan ku badiyay inaan idinka siiyo qaar 20 casho ku qaybay iyo qaar 30 ku qaybay iyo qaar Bukhari iyo Saxiixaynka qaybay war haddadan مثلا لبدن إن شيء نكمل ده دكتور يحيى الغوثي ما يا دكتور يحيى اليحيى حفاظ الوحيين ويب سايت كلا يراني كله دكتور يحيى اليحيى أحد العلماء مدينة جنب رجينينوي يحيى اليحيى وحلي برنامج سنن كلا قيبسية دتك قرآنك ما تقارن أنت لقو قيبسية قرآنك الدورة دي سؤال لحدا مع الموضوع لقو قيبة بس labada bilood ee ardada iskuulada ka fasaxatahay ayaa la isliiskareeya ardabu la iskareeya xarameynku keena labada bilood ayaa quraanka lagu qayba waa dawra li hifd alquran lixdan cashaa meel la fadhiyaa shaqo kale la qabanin laga rabixin cunada un la cunaa loo i'tikaafsay in quraankaas un la akhriyo la kala dhageysto lixdan ka cashar ku qayba sunanku dadka qaybsiya نظام قارو اسكالي وراعه اولا بخاري هي صحيح مسلم كو انت اسكو وافقين مصو ururiyay كتاب قارو قري كتاب كسار دد لو ديبا متفق الشيخان با لا قيبسيه كدب اي ardayga waxa la qaybsiyaa man farada bihi al-imam al-bukhari oo gaara wixii imam al-bukhari oo dheer yahay waxa la isku ittifaqsay kadib ayuu qaybsiyaa wixii imaam muslim uu munfarid leeyahay ee aan ku jirin bukhari inta markuu qaybsiyo alfaad ay muxtalif u yimaal qaybsiyaa kadib wuxuu raaciyaa sunanka la soo qaada abi daawud wixii aan bukhari iyo muslim ku jirin ee uu gaarka leeyun baa lagu dulbineeyaa intaas la qayba tirmidi wixii aan saddexdii kitaab hore ku jirin ee uu gaarka leeyun baa lagu dulbineeyaa rag un buu soo saaraa sunanka qaybsan idan waxaan idin leeyahay شبابك حفاظ يا قرآن كهية يجا وحن لا يبلو باتين هذا قرآن كهيسان كصعدة حديث كقيبة علوم الآلة قيبة كتاب دم بينك وآخرين يا الله ينارك كتاب كآخر أنت كقيبة بس أئمة المسلمين لما تدعي كاسيها كتبته دلابته ده كسيتين إمام الشافعي قبل يسمعوك شيء هاكيلو هذا علمه waxa qartaas ku qoran ma habuudo waxa qalbigaaga ku sidato Ghazali baa leeyahay bari kutub soo rartay isagoo wata tuugi heshay markaas ay dhacdo kasoo war kitaabadu iga taga cimrigayga wixii aan qorayay halkay ku jiraan war socod ay ku yiraahdeen kitaab leeyne maalintaas uu tashado yiri cidlaad qodaysi wixii dama uu qayba de tuug dama muxuu ka qaaday kitaabkiisi laabtiisa ku qayba waxaan uga jeedaa marka كلمة تاني وحياة فرا واحد إن نصوص صارنا ذهبي يا بخاري يا مسلم يا شافعي يا أبو حنيفة يا مالك ويد كبوحان هذا علوم مادية هنا أينشتاين يا غير كيبا ويد كوتشيران لكن هاكو قنعنا وحبا قرن ميسيدي يا وحبا برن كريم ميسيدي يا مال عدلها بات شوكتا يا أدو أفريكان باتا يا كباتا يا عجمي باتا وحسوا شاكو طاقة ألا كسية إلهي وقام هدي عليه سبحانه وتعالى اسكن الدينا دا ديكسته رجع هلكم كل اعتكاف سنة وحلا يدين كل إحدى عشات تجابين يسامبا إلى قرآن كقبطان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته